sida lala wada socdo waxaa 12 bishan ku dhawaaqnay in 15 Abriil magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu soo rogi doono bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 aroornimo. tallaabadaas oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo faafidda xanuunka khatarta ah ee coronavirus. haddaba waxaan doonaynaa inaannu mar labaad ku wargelino shacabka Soomaaliyeed inuu dhaqangalka bandowgaas uu bilaaban doono caawa 8 fiidnimo haddii Ilaahay idmo. sidaa daraaddeed waxaannu muwaadiniinta sharafta leh ka codsanaynaa inay u hoggaansamaan. ciidamada amniga waxaa la farayaa inay ka howlgalaan dhaqangelinta bandowgaas iyagoo hubinaya inuu si buuxda loogu hoggaansamay. bandowgani sidaan horeyba u sheegnay waxa uu saameyn doonaa dhammaan ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo goobaha lagu iibiyo raashinka qalalan iyo xarumaha caafimaadka sida cisbitaalada iyo farmashiyeyaasha. sidoo kale bandowgani ma saameyn doono saxaafadda oo howlo muhiim ah oo wargelin iyo wacyigelin isugu jira u haya bulshada Soomaaliyeed. waxaana la farayaa booliisku inay saxafiyiinta u fududeeyaan howlahooda. waxay kaloo ku caawini doonaan dadka xanuunsan ee cisbitaalka u socda sidii ay u gaari lahaayeen goobaha caafimaad si ay u helaan daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin.